asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada saaxiibayaal, kuna soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso kaloo cusub. saaxiibayaal, caawa waxaan idin wadaa qiso yaroo iska kooban oo ka dhacday dalka Kuwait. marka sida caadi inoo ahba ma jiri doonto wax hordhac ama aan sheekadan ka hordhici doono, toos waxaan ugala doonaa qisadeena. caawa waxay ku bilaabanaysaa sida tan. wuxuu ahaa wiil u dhashay dalkan Kuwait. marka wiilkan maalin wuxuu wacay booliska oo wuxuu ku dhahay waxaa ila jooga wiil lagu magacaabo Maajid oo ka soo jeeda Suuriya. macnaa wuxuu dhahay wiilkan ayaa ila degan oo marti ah, wuxuuna ka soo jeedaa dhanka iyo Suuriya. marka wuxuu dhahay wiilkan inta uusan aniga ii imaan ka hor wuxuu soo degay 4 guri, oo macnaa wuxuu dhahay 4 reer kale ayuu la soo joogay, laakiin 4 guri kale waa laga soo buriyey. haddana wuxuu joogaa gurigayga. kadib booliska waxay dhaheen waa yahay oo arrinka aad noo sheegi rabtid muxuu yahay. wiilkan hadduu gurigaaga joogo waa qof marti ku ah oo waddan kale ka yimaaday, marka arrinkiisa muxuu yahay ay dhaheen booliska, oo sababta aan noo soo wacday maxay tahay. kadib wiilkii wuxuu dhahay wiilkan la yiraahdo Maajid wuxuu ka yimaaday Suuriya. marka wuxuu dhahay mid qaraabada ka mida ayaa wuxuu ii sheegay in Maajid uu dil soo geystay, macnaha dalkiisa Suuriya uu dil ka soo geystay, intan uu baxsad ku yahay. marka wuxuu dhahay ninkan aan qaraabadana wuxuu igu dhahay ninkan Maajid la yiraahdo waa in aad gurigaaga ka burisaa, sababtoo ah waa nin dembi soo galay oo gacan ku dhigla ah. sidaad ogtahan waxaa laga soo buriyey guryo badan, marka adigana si aadan khatar u galin wiilkan Maajid iska buri. marka booliska wuxuu ku dhahay sidaa ayaan idinku soo wacay oo arrinka wiilkan waa sidan. marka wuxuu dhahay aniga hadda ma awoodi in aan dhaho gurigayga ka bax, gacan ku dhiglaa tahay, oo wuxuu dhahay waxaanu cabsanaa nafsadeyda in uu dhib i gaarsiiyo ee idinka oo booliska idin soo sheegay arrintan. marka wuxuu dhahay wax ka qabtaa, anigana hay kashfina oo ha u sheegin in aan aniga idin soo sheegay arrintan. marka booliska waxay dhaheen waaya ha cabsan ee halkee degan tahay, oo xaafadda aad degan tahay waa halkee. marka wiilkii wuxuu u tilmaamay meeshuu degan yahay, ciwaankii wixii siiyey. kadib waxaa gurigii yimaaday booliska, albaabkay soo garaaceen, way soo galeen. markay guriga soo galeen waxay arkeen wiilkii soo wacay iyo wiilkan kale Suuriyaanka oo Maajid la yiraahdo, labadaas wiil arkeen. kadib waxay dhaheen aaway aqoonsigiina. marka wiilkan kale Kuwaiti way yaqaanaan inuu dalka u dhashay waxyaabahaas, laakiin sababta ay aqoonsi u weydiinayaan waxay tahay si uusan wiilkan kale u fahmin. marka booliska waxay dhaheen labadiina aaway aqoonsigiina, macnaha waxay iska dhigeen dad oo wax kala baarayo kale, laakiin informationka dhan way haayeen ninkan arrintiisii waxyaabahaas wiilkana ugu sheekay. marka si aan loo fahmin waxay dhaheen aaway aqoonsigiina. marka aqoonsigooda soo bixiyeen waxaa la waayahay wiilkan Kuwaitiga waxaa la halkan noo istaag, wiilkan kale waxaa la marka adiga halkay ka timaaday. wuxuu dhahay aniga waxaan ka imaaday Suuriya. kadib booliska waxay dhaheen ma jirtaa adiga mushkilad aad ka soo geystay Suuriya, macnaha dembi iyo waxyaabahaas ma soo gashay. wiilkii wuxuu dhahay maya, aniga wax dembi soo galay ma lahan, intana caadi aan u joogaa oo wax dhiba ma jiro. kadib booliska waxay dhaheen arrintaa ma hubtaa oo ma naga hubtaa arrintaa. wiilkii wuxuu dhahay haa waa idinka hubaa 100%. kadib booliskii waxay dhaheen waayahay, laakiin tuhun aan ka qabnaa oo meel ha aadin. wiilkii wuxuu dhahay maxaa jira, wax ii sheega, sidee wax u jiraan. booliskii waxay dhaheen maya, waa kugu soo laaban doonaa oo tuhun ayaan ka qabnaa ee meeshaan noo joog. kadib booliskii way baxeen, waxay bilaabeen baaritaan in ay baaraan arrinka wiilkan iyo sheekadiisa, sababtoo arrinkan waxaa u sheegay wiilkan kale. marka ma hubaan in ay run iyo been waxay tahay, ma hubaan ilaa caddeyn ay ka helaan. marka booliska waxay bilaabeen inay arrinta wiilkan baaraan, inay wicitaano badan sameeyaan, xitaa waxay la xiriireen waddankii kale oo wiilkan arrimihiis wixii dhan ay adiga ay raadinayeen. laakiin maalinta labaad waxaa soo baxday arrin aad iyo aad u yaab badan, oo maalinta labaad waxaa saxaafadaha lagu soo qoray dalka Suuriya in lagu dilay qoys dhan, hal qoys dhan in la dilay ayaa waxaa lagu soo qoray saxaafadaha. marka qoyskan yaa dilay, sideen loo dilay. horta qoyskan waxaa geeriyooday aabahooda. markuu aabahooda geeriyooday qoyskii wada kulmeen
waxay u kulmeen si ay u qaybsadaan dhaxalka. Sababtoo aabihii wuu dhintay, wuxuu ka tagay dhaxal fara badan oo ay isugu jiraan guriyo, dhul, beero, xoolo, aad wax badan oo ka tagay. Marka waxaa la bilaabay in dhaxalkii la qaybiyo. Kadib waxaa la qaybiyay dhaxalkii, qof walban waxaa ku soo aaday qaybtiisa. Kadib wiilkan la yiraahdo Majid marka hore wuxuu deganaa isaga horta Kuwait. Markuu aabiis dhintay kadib wuu yimaaday oo wuxuu yimaaday markii dhaxalka la qaybinayay. Wiilkan markuu yimaaday oo loo sheegay inta ku soo aaday, sababtoo waxaan dhaxal qof walba waxa ku soo aaday maaho. Marka waxaa leeyahay Majidow intaana kugu soo aaday dhaxalkaaga waa kan. Wiilkii wuxuu dhahay maya, aniga waxaan yeelay ma ahan, dhaxalkaygana intaan uu ka badan yahay. Oo wuxuu dhahay waxaan rabaa guri hebel, dhul hebel. Adiga wuxuu bilaabay in uu wax tilmaansado. Marka waxaana dhaxal waaye oo sida loo qaybina sharciga waa taqaaniin oo qof walba wixii ku soo aadalsiina. Macnaheedu waxaana rabaa qof wax ma lagu siinaa. Marka saaxiibkaaga marka arintaas loo diiday oo waxaan macquul ma ahan intaana kugu soo aaday qaado. Marka saaxiibkaaga wuu diiday, familkiina way u diideen in ay siiyaan wuxuu rabo. Markii arinta meesha maraysay, wiilkan maalin xilli ay ku aadintahay salaada subax wuxuu u soo galay familkan oo wada jiifaan. Markuu familkii u soo galay wuxuu dilay familkii oo dhan. Familku waxay ahaayeen 2 gabar, 2 wiil iyo hooyo. 5 buu dilay. Kadib markuu 5tooda dilay, isla markii saaxiibkaaga wuxuu ka baxsaday Suuriya, wuxuu aaday airport-ka oo wuxuu dib ugu laabtay Kuwait. Laakiin familkaas waxaa ka badbaaday 1 wiil. 2 gabar, 2 wiil iyo hooyadii dilay, laakiin 1 wiil badbaaday. Markii wiilkaas arintii wuxuu u gudbiyay booliska in familkan la dilay. Arintan uu ka dambeeyay Majid uu dhammaan familkii dilay, kadibna u baxsaday dalka Kuwait. Marka arintaas la ogaaday, baaritaan iyo wixii markii la sameeyayna, arintii waxay ku soo baxday Majid in uu familkan dhan dilay. Kadib ay arintiis waxaa lagu soo qoray saxaafadda, sida ayayna ku arkeen booliska Kuwait. Booliska Kuwait ayagoo markii hore ninkan shaki laga qabo arintiis la baarayay, haddana waxay arkeen cadeyntan. Isla markii waxay soo qabteen Majid oo waxay dhaheen kaale macluumaad iyo waxyaabahaas ku heena, ma dhihin dil iyo waxyaabahaas geystay si uusan u baxsan. haddana waxaa la kaale arintaada macluumaad iyo waxaan kaga heena no imow. Markuu yimaaday waxaa la dhahay qoyskaaga maxay u dishay. Saaxiibkaaga isla markii ma kala balabeen oo arintii ayuu qirtay. Wuxuu dhahay haa, aniga ayaa qoyskayga dhan dilay. Sababtan u dilayna waxay ahayd waxay ii diideen dhaxalkayga, inay dhaxalkayga isiyaan ay ii diideen. Dhaxalna looma diidin oo qaybtiisa waa la siiyay, laakiin wuxuu rabay in la siiyo wuxuu isaga rabo. Macnaheedu wuxuu dhahay dhulkan aleysiyo, gurigan aleysiyo, midana ma soconayso. Marka ninkan wax dhaxal loo diiday ma lahan. Familkan adeeg kascadu u dilay iyo madax adeeg iyo teeda la yeelo. Adeeg wax been hadal badan idinku daalin. Booliskii way qabteen oo waxay geleen xabsi. Kadib waxay la xiriireen wadankiisa Suuriya oo arinkii ayay ka wada hadleen. Kadib waxay ku wareejiyeen dalkiisa iyagoo u marsiinay Interpol. Markii wiilkii Majid dalkiisa la geeyay Suuriya, halka ayaa lagu xukumay oo xukunka sharci ayaa la marsiiyay. Markii wiilkan intaan wuxuu u sameeyay dhaxal. Marka hadda dhaxalkiina ma helin oo dhaxalkii intaan u sameeyay ma helin, nolol ma haysto. Waxaa lagu xukumay isagan in la dilo. Marka waa ka dhaxal lama lahan, nolol ma lahan. Xitaa fiiri waxaan markaa sameynayso in wixii ay yeesho waa mugtahay. Haddaadan wixii helanin maxaa dad u dilaysaa ama arin kale ugu kicaysaa. Marka saaxiib yaal Majid sheekadiisa halkaas ay ku eg tahay. Intaynu muuqaalka xiga dib u kulmi doonaa. Amaano Alle. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.